xarunta dhexe ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland waxaa ka socday muddo 4 maalmood ah wadatashigai ugu dambeeyay ee laga lahaa dhamaystirka 5 siyaasadood oo ay yeelanayaan shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland. Wadatashigan oo qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin ka kala socday hay'adaha dowladda iyo bangiga adduunka waxa ugu dambeyntii kulankaasi uu ku soo gabagaboobay dhamaystirka siyaasadahaasi oo dhawaan la qorsheynayo in la horgeeyo golayaasha dowladda Puntland. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka socday hay'adaha dowladda Puntland ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan wadatashigai muddada 4 bari ahaa ay qaybta ka ahaayeen. waxaan u mahadcelinayaa marka shaqaalaha waa timaadeen waxaad saxdeen wixii u baahnaa saxitaan u baahnaa waxaad fikirkiina ku darsateen wuxuu u baahnaa in fikir lagu daro waxaad kale oo aad fikirkiina ka dhiibateen meeshii u baahnayd wixii aad islahaydeen waa khaldanyihiin waa la saxayaa intaasna waxaan rajaynayaa in lagu soo daro. wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa sheegay in muddo dheer ay soo wadeen dejinta siyaasadahan uuna maanta uga mahadcelinayo dhammaan inta gacanta ka geysatay fulitaankan hawshan waxaana uu faahfaahin kooban ka bixiyay siyaasadahani. farxadda maanta halkan aan u fadhino in muddo sanad ku dhow aan soo wadnay 5 siyaasadood oo dhammaantood taabab iyo tiir u ah tayeynta shaqaalaha dowladda Puntland oo ay ka mid tahay siyaasadda koowaad oo ah sidii loo hayn lahaa shaqaalaha sidii loo hayn lahaa marka la retention policy qofka shaqaalaha waxa la rabaa inuu u ekaado ama uu dareemo inuu ugu fiican yahay cid kasta oo loo shaqeeyo inay tahay dowladda cidda loo shaqeeyaa uguna sabcadroon uguna sharafroon labo in qofkaas noocaasa oo rabo in sharafta iyo haybada inuu helo inuu noqdo qof kartidii iyo aqoontii ilaa competency ma garanaysaa looga baahnaa shaqada inuu fulin karo in nooceedii sawirkeedii muuqaalkeedii iyo dadnimadeeda inuu yeesho. waxaan rabnaa iyada laftigeeda marka qofka gaboobo oo waqtiga uu ka baxo age-ka in uu helo wixii xaq u lahaa oo dalka uu xaq ugu lahaa muddadii uu soo shaqeeyay oo dalka uu soo shaqeynayay oo la helo siyaasadda hawlgabka. sidoo kale si qofku ugu nagaado meesha waxa loo baahan yahay qofkii in la suurto geliyo environment u sahlaya ama deegaan u sahlaya qofkii inuu ku nagaado shaqadii oo ah in xirfadiisa aqooneed ay noqoto mid joogto ah qofkii mutaysta in la sii horumariyo. siyaasadda ugu dambaysa waxay tahay oo aad iyo aad muhiim u ah habdhaqanka mid ka turjumaysa qaabka uu u dhaqmaayo iyo waxa laga rabo inuu u dhaqmo qof noocaa inuu noqdo qofka u shaqeynaya dawladdu waa inuu noqdo qof ay akhlaaqiyad iyo haybad iyo anshax iyo sharaf inuu yeesho laga doonayo ay wax celiyaan. wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta dowladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac oo soo xiray wadatashigan ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay helitaanka siyaasadaha lagu hagayo shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland. runtii sharaf bay tahay inaan igala soo qayb galo barnaamijkan ayto waqti badan baa u horteen waqti badan baa geliseen runtii siyaasado muhiim oo runtii loo baahan yahayna aad muxuu ahaa ka shaqeyseen in muxuu ahaa la diyaariyo oo dhaqangal u noqonayso habkii lagu horumarin lahaa lagu tayeyn lahaa shaqaalaha dowladda iyo lagu horumarin lahaa dowladda mar walba shaqaalaha la tayeeyo shaqada dowladda way horumaraysaa. Maxamed Saciid Qoslaye, Puntland TV, Garowe.